السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيرت شرفت لي دقيسن دونتاي كرهان دادك كسو جيدو كاونتيكا غاريسا وقوي بري دالكا كينيا وين سلامية سلام كدب معلومة waxaan ka arkaynaa baraha bulshada faaxisho aad weyn laga xishoodo ceebeysay dadkii deegaanka Gaarisa countiga iyo dadkii u nasab sheeganayay halkaas siyaasiyiintii aqoonyahankii culimadiinkii oday dhaqameeyadii iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waa ceeb soo hoyatay waxaan arkaynaa maalmahan in ay baraha bulshada iskaga jawaabayaan laba nin oo mas'uul ah oo loo dhiibtay xilka Gaarisa loo soo doortay in ay wax ka bedelaan dadkaas dhibaataysan waxaan ognahay inay siyaasiyiin lixaad leh halka joogaan haddana waxaan arkaynaa in ay waxba ka dhihin waxaan leeyahay oo baaq u diraya dadweynaha Gaarisa milkiilaha ah soo doortay nimankan waa in labada asnin labadaba ay meesha ka tagaan runtii waxaa ceeb ah dadkii mas'uuliyiinta ahay la soo doortay loo dirsaday in ay u adeegaan dadka haddana inay saastaan waxaa ceeb oo kale ceeb ku tahay bulshada reer Gaarisa dadkaas aan wax isbedel ka sameeynin countiga Gaarisa jid malaha adeed aragto ayaga baa sheegaya in ay wax horumar jirin haddana gaar ahaan governorka wax la yaabo ayuu dhigay waxa ceeb ah nin weyn oo governor ah oo magac governor sheeganayo mas'uuliyad isku sheegayo oo leeyahay waxaan ahay mataqaanaa nin discipline leh oo military soo maray oo administration soo maray oo taa labadaba waa run oo Bombaaso ka ahay DC markii dambe laga ceereysaan wahay inta ninka jagay soo martay haddana waxyaabuhu ku hadlaya ceebta la dhex taagan yahay reer Gaarisa waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada halka laga soo doortay ugu horeeyo super senator Yusuf Haji Central Gaarisa ninka laga soo doortay Aadan Bare Ducaale Maxamed Daahiye Dadaab laga soo doortay ninka laga soo doortay Brambala Abdi Umar Shooriye lagdeera ninka laga soo doortay asagana Gaarane Maxamed Hire Safiya Abdi Nuur oo laga soo doortay Jaara Anab Sugow ayadana oo woman rep ninka la yiraahdo Abdikarin Usman intiinaba waxaan idinku baaqayaa labada nin inaad ka soo saartiin qoraal ama baaq waayo dadkaas waxa laga sugayaa inay u adeegaan dadka Gaarisa horumar male jidashi waka wax hadda maanta meesha horumar ka jiro ma garanayno haddana haday ceeb iyo faaxisho iyo jaa'ife la markaa iyaga is jaa'ifayaan reer Gaarisana waxa la hayaa labada nin waa labada nin oo laga soo doortay county Gaarisa governor ku-xigeenka soo ahay marka waxaan ku baaqayaa bulshadeenta iyo dhamaan siyaasiyiinta soo magacyadooda sheegay in arrintan wax laga qabto in arrintan laga soo saaro baaq waana reer Gaarisa banaan baxan dhibaatooyinka hadda haasto haddana mas'uuliyiintii madaxda ahayd oo de buraha bulshada iskaga jawaabayso haddana isu caynayso sida haweenka oo kale waxa waa dhibaato u soo kororantay iyo ceeb dadkaas iyo dadka mataqaanaa soo doortaba gaari doonta marka intaasaan ku soo koobaya walaalaha waa dhageysan doontiin insha Allah mana daayni doono buraha bulshada ayaan ka hadli doonaa insha Allah aad iyo aad wad maasantiin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.